kulantii waxaana wanaagsan daawadayaal meel kasoo joogta ama waa mar kale barnaamijka uga barateen inuu idin kasoo baaha bartamaha Toronto magacayga maxamed daahir xasan oo ku mahadsantiin daawashada barnaamijka si aad la socotaan si aad uga qayb qaadataan talooyinkiina dhaxalgal kale tusaalaha iyo fikradiina intaba aad baan idinku mahad celinaynaa daawadayaal maanta waxaan haynaa barnaamij kale annagoo og xilligii xagaaga inuu soo gabagaboobay isla markaasna iskuulaadkii iyo sidoo kale shaqooyinkii dib loogu soo noqday magaalada Toronto hadii jeer waxaa ka dhaca barnaamijyo waaweyn oo xilliga xagaaga la soo gabagabeeyo dhawaanna barnaamij arrinta ku saabsan ayaa ka dhacay xaafadda Jamestown loo yaqaano oo idinku taala Ethiopia ama Toronto barnaamijkaas runtii ah mid muddo soo socday ayaa waxaa ka qayb qaatay dad aad u badan dhalinyaro badan ubad iyo dad waaweyn intuba waa ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan waddanka Canada ayaa halkaa yimid haddaba weli Xuseen Nuur Xaaji ayaa noogu diyaariyay barnaamij oo isoo goobta ku sugnaa Xuseen soo dhawow maxaad ka oran lahayd barnaamijka ka dhacay xaafadda Jamestown iyo John Garland waxa uu ahaa iyo sidoo ahaa bal wax yar dadweynaha la qaybsan mahadsanid maxamed daawadayaal xaafadda John Garland iyo Jamestown ayaa lagu soo gabagabeeyay barnaamijkii xagaaga oo carruurta lagu barayay waxyaabo kala duwan oo ay tacliintu ka mid tahay barnaamijka waxa soo qaban qaabiyay ururka Horn of Africa Community Development oo saldhigiisu halkan yahay haddaba barnaamijka ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan carruur dhalinyaro culamaa u diin haween iyo dadweyne fara badan My name is Yasmin Yusuf and I am a student teacher as well as a health and safety officer here and I have taught the grade 6s math and English and it was a great 8 weeks experience as you guys all know I like to challenge my students. And one of the things that I have noticed about a lot of you guys, especially the grade 6s, is that sure, a few of the things that they consider hard, sometimes when they go back to it and you tell them no, the first they say it's hard without even looking at it, and when you go back to them, they're like, yeah, actually I understand. So I have taught them exponents, them be going to grade 6s, and they have understood it. Although some of them, they say, it's too hard, it's grade 9 work, why are you teaching at this, is this? But what I want to show them and teach them is that they are capable to do anything. You guys are capable to do anything if you put your mind to it. Sky's the limit, nothing can stop you. You guys can do anything. You have to have ambition. Like I told you guys before, drive and ambition is what you get you to this world. You can't say that I come from a rough area or a rough background. A rough area, a rough background to determine who you are. Your family is behind you, your community is behind you, we are behind you, and nothing can stop you. Every time, if you guys listen to everything that everyone says, to be honest, it's very hard to do things. So you have to think about yourself. You guys are kids right now. As I said before, the word I can't and I can't do and I don't believe should never be in your vocabulary. You should be able to say I can do this, I can do that. When I was little, me and my siblings, we would sit in our balcony, and we would be I was I'm gonna become a surgeon, and my brothers would say they wanted to become a doctor, and my sister would say I want to become a fashion designer or a lawyer. Sky's the limit. You guys can do anything you want, and still I still am behind my dreams. Hopefully, if I can accomplish them. So you guys should always whatever you have in your mind, you should always do, because when you reach high. Sure, you might not get there, that could be a possibility, but you'll reach close to it. But if you don't have any dream or any idea or any thought of where you're going, then you won't be able to go anywhere. So as I was saying, my last advice to you guys is that just don't let anyone put you down. You guys are very smart. I saw it firsthand. I was your teacher. I saw all your work. You guys have an open mind. Just don't let anyone put you down. You're above everything. dadkii ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa wasiirka sayniska Dr. Christy Duncan iyo xildhibaanka xildhibaan Axmed Xuseen oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka federaalka Canada barnaamijkii intii uu socday gabagabada ayaa waxa carruurta lagu guddoonsiiyay shahaado iyo hadiyado kale oo ay ku muteysteen intii uu socday barnaamijkii xagaaga ee ay ka qayb galeen haddaba barnaamijka iyo sidoo u dhacay iyo waxyaabaha carruurta la barayay xilligii xagaaga waxa muuqaalka Soomaalida u faahfaahiyay Aadan Cadow oo ah madaxa ururka Horn of Africa Community Development waa kan
aadan cadow. السلام عليكم ولا الحسين ومهتسنتهاي برنامج كان هدان كاغا ورمو marka horeyso magacayga waxa waaye injineer aadan cadow waxaan ahay presidentaha Horn of Africa Community Development organization kan oo ah organization ka shaqeeya xaafadan Rexdale Jamestown and John Garland area waxaan برنامج aan qabanay oo hadda aan gabagabeynayno waa Canada Summer Job oo ciyaalka shaqooyin lagu siiyo sanad walba oo mataqaanay dawladda federaalka ay siiyaan marka maanta waa gabagabadii sida u jeedaan waxa ka soo qayb galay MP oo fara badan MP Ahmed Hussein oo mataqaanay taqaanin MP-geena kaliya Soomaaliya iyo Minister of Science Dr. Duncan Christen oo ah MP-gi area North Etobicoke iyo councilorkii North Etobicoke Vincent Crescente oo deputy mayorka program aad u fiican oo ahaa si fiican u gabagaboway marka shahaadooyinka ciyaalka lahaayma waa la siiyay marka gabagabadii waxa programka maanta ahaa wuxuu soo socday ilaa 8 weeks intensive course ahaa marka waa mahadsantiin فرصة إيسيسي إن أنا كسوجي برنامج كمان تروحيه عشان كذا شيء ذا جدا وأوفيس كيني وسكول كيني وماشي كوميونتي كهرجلو و70 بي جون غارلاند بولفارد توبيكو نورث مركا آذي أيام محسن حسين mahadsanid aadankaasi waxa uu ahaa aadan cadow oo ah dabcan madaxa ururka Horn of Africa Community Development haddaba sidaad ogtihiin daawadayaal xilliga samarka waxa la qabtaa barnaamijyo kala duwan oo Soomaalida halkan ay qabtaan iyadoo markaasna dhalinyaradu lagu dhiirigeliyo sidii ay tayo waxbarasho iyo mid kaleba u leeyamaan lahaayeen barnaamijyada la qabta xilliga xagaaga ayaa waxa kamid ah in caruurta loo diyaariyo xilliga iskuulka ay ku noqonayaan isla markaana laga caawiyo maadooyinka lisleeyahay dabcan waa ay ku liitaan xilligan caruurta waxyaabaha la baray ee ururka Horn of Africa Community Development oo xilliga xagaaga baray waxa kamid ahaa in caruurta loo fududeeyay isla markaana wax laga barayay xisaabaadka oo kamid ah maadooyinka dabcan cilmiga aadkana u adag haddaba waxyaabaha dhalinyarada iyo caruurtii waalidiintuba soo jiitay waxa kamid ahayd sidii ay dhiirigelinta u muujiyeen ama hadallada dhiirigelinta ay halkaas ugu jeediyeen wasiirka sayniska Dr. Christy iyo waliba xildhibaan Ahmed Hussein oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka federaalka Dr. Christy maray hadlaysay waxay tilmaantay in Soomaalidu ay yihiin dadka ugu maskaxda fiican oo caruurta marka laga hadlayo dhanka waxbarashada sidoo kale waxa ay ku dhiirigelisay in ay ka mid noqdaan hay'adaha kala duwan ee dawladda Canada iyadoo Ahmed Hussein ku tilmaantay inuu yahay mid Soomaalidu u horseedaya in ay rajooyin badan yeeshaan marka ay timaado qaybgalka dhinaca siyaasadda maadaama uu noqday xildhibaankii ugu horeeyay waxa ay ku dhiirigelisay waalidiintu in mar walba ay ka warhayaan caruurta oo ay ka warqabaan iskuulada iyo waxbarashadooda iyadoo xustay inay mar walba garab taagan tahay Soomaalida iyo community kale ama bulshooyinka kale ee ku nool dalkan Canada. It's such a pleasure to get invited here. I'm so honored to join all of you and also to join my colleague and mentor, Dr. Christy, my friend, Dr. Christy Duncan. And we wanted to hear from some of the young people who got those jobs. And we wanted to hear two things from them. How the Canada Summer Jobs program helped them and the impact that that program had on their life, but also what that did for the organization and the ability of that organization to serve the community. So it was a very useful discussion. I want to conclude by saying something that I got from Ahmed Khalil, who's not here. He spoke just before we came in. And he spoke about how you can be whatever you want to be in this country, more than any other country in the world. Secondly, I want to also repeat something that the young lady said. Where is she? Is she here? So she said something that I think really touched me, which is what she said was, and the city councillor was here just as you were coming in, she said something that really touched me, which is she said, your parents, so she was talking to the young people and she said, your parents, your teachers, the city councillor, the member of parliament, your minister who's also your member of parliament, they're all focused on one thing, which is for you to succeed. So
both Ahmed Khalil and the young lady were saying that you have all these people who are doing work day in, day out just for one thing, to make your lives better and to have you, to make the conditions for you to succeed. So the only thing they're asking in return is for you to then step forward and say, okay, I will learn, I will go to school, I will do my part, and I will become a very productive member of society. So I hope you understand that we're all rooting for you. We want you to succeed. We're all working towards the same goal. And what you have to do is realize once and for all that you are Canadian as everyone else, and that this country, more than any other country in a world full of turmoil, is the one country where there is no limit to your success. You can start a business that can become, how much is BlackBerry worth? 25 billion or something like that? I mean, two people started that business, and it's a Canadian success story. So you can be whatever you want to be. There are no limits to your success, and we're here rooting for you. And I'm a perfect living example of someone who had your background, who can get to where you are. So on that note, I would say we're here to help. Please make your parents proud, make your teachers proud, and make your community proud. Thank you very much. All right, thank you, Ahmed Hussein, for that lovely speech. Next, we would like to welcome. Assalamu alaikum. Satahai. Fian, alhamdulillah. Maka Aigawa Kirsty. And to Horn of Africa, I want to say Mahatsinit. I want to say thank you for what you do every summer here. I want to say thank you for organizing. I want to thank the teachers. And to all the students, I'm going to say it again. We are so, so proud of you. And it's not just your parents, it's your community. Your community is proud of you. As Ahmed says, we're rooting for you. You know what I always told the kids I taught? Because I taught a long time. I told them, you have to remember this. Will you guys say it with me? You have to reach for the stars. Say, reach for the stars. That means if anyone tries to get in your way, you know that you can do anything. If you want to be an engineer, if you want to be an astronaut, they're actually looking for astronauts right now. If you want to be a member of parliament, like Ahmed Hussein, I want to let you know that, oh, there's Jibril. Tahira, you got to stand up in Barath. Tahira drove down from Barrie this morning. Got up, doesn't work today. And she went shopping so that there could be a barbecue. Why? To celebrate you. To celebrate you. Mahatsinit, Somalia Hanalato, Canada Hanalato. sidoo kale waxaa hadlaya qaar kale oo ka tirsan ururka iyo mas'uuliyiinta xaafadan. Xuseen aad u mahadsan tahay. Haddii aan kaaga sheekeeyo muhiimadda programkan waxa waaye sanadkii 14aad oo aan sameynayna way. Programkan waxa ugu tala galnay ilmaha xaafadda degan iskuulka marka la xiro. Iskuulka marka la xiro qaar waa shaqan siinaa, qaarna waxba la baraa. kuwa oo shaqada la siiyay macallimiin ay noqdaan kuwa kale. Programkiisu ujeedadu waxa waaye in ilmaha mashquul laga dhigo waqtiga samarka oo iskuulaadku xiran yihiin. haddii aan mashquul laga dhigin oo jidka ilmaha aadaan, ilmaha waxa dhici karto jidka inay ku helaan saaxiibo xun oo u leexiyo dhinac xun u leexiyo. mid kale waxaan ka caawinaa mid walba duruustii uu qaadan lahaa sanadka soo socdo aan ka caawinaa, qaas ahaan maadka, ingiriiska iyo sayniska. marka barnaamijyo badan ayaa community-kan sameeyaan. waa ogtihiin annaga tradition-keena Soomaaliya iyo halka isku mid maahan. ilmaha waxay la qabsadeen halka dhaqanka halka ay la qabsadeen. waalidiintina waxay wataan dhaqanka xagga. marka annaga waxaan sameeynaa mararka qaarkood inay xataa waalidiinta iyo ilmaha aan isfahamsiino iyo macallimiintiba. sababtoo ah ilmaha xataa qaar waalidiintu aan fahmayna jiro.
sababtoo ah dhaqanka xagga iyo traditionka xagga oo waalidiinta ay wataan inta ma wataan marka meel dhaxa ayaan isku keenaa oo isku fahmi karaan waxaan kala dagaalnaa ilmaha inay jidka istaagaanoo meelahaas ay ku dagaalamaan ama saaxiibo xun ay duubsadaan ama ay daroob aad noqdaan barnaamijkan inkastoo hadda samar u dhamaaday samar joobka u dhamaaday anaga ma joojino haddana waxa u bedelnaa after school program oo tutoring mid walba waxa laga caawinaa duruusta uu ku liito ayaa laga caawinaa si uusan daroob aad u noqon marka meeshaan dad badan aan caawino odayaal badan oo community-ga hooyooyin badan adinka hadda waa joogtiin maartay waa ina caawintiin u timaadeen aad u mahadsantihiin aad aan kugu mahadinaynaa marka barnaamijkan wuu soconaya waxaan rajaynaynaa meelo badan oo community-ga Soomaalida ay degan yihiin in laga hirgeliyo barnaamijkan aad u mahadsantihiin waa tahay aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed faarax caliyo oo ka tirsan odayaasha xaafadda iyo ururka Horn of Africa Community Development mahadsanid xuseen nuur aad iyo aadan idinkaga mahad celinaynaa TV-gan muuqaalka Soomaalida oo aan ku ogahay maxamed daahir asagana aad iyo aad mahadsantihiin inaad maanta noogu timaadeen noo soo martiseen Horn Africa Development Community Center oo halkaan oo anagoo dad elderly iyo dhalinyaro iyo haween intaba iskugu jira aan rangalayno ama aan wadno arintaas Horn Africa maanta waxa ka dhacay xaflad weyn oo ahayd summer jobkii in maaragtay summer jobkii aan soo xireynay waxa nagala soo qayb galay dad badan oo aad iyo aad maaragtay dad madax u ah sida Dr. Christy Duncan oo liberaalka ah kana tirsan wasiirka sayniska ah iyo MB Ahmed Hussein oo asaguna nin Soomaaliya oo kii Soomaaligi ugu horeeyay MB-ga loo doortay ah iyo ninka ka orda consularka ka orda Ethiopia North la yiraahdo Finsi Crescenti dad badan oo Soomaaliya dad eldariya culimaawidiin iyo dhalinyaradii halkan ka shaqeynaysay summer jobka la siiyay halkan laga hayargareeyay ayaa halkan isugu yimid saad ogsantihiin Horn Africa waa qadiim 14 sano ay shaqeynaysay waxaan isleenahay marka la fiiriyo community-yaalka halkan waa community-ga aan isleeyahay organization-ka aan isleeyahay dhalinyarada youth-ka iyo haweenka iyo senior-ka dadka waaweyn ayay wax u qabtaan waxyaalo badan oo halkan iyo mujtamaca dhamaantiisba waxaan kaloo ku jirnaa mujtamaca nooc oo yahaba isu keenistiisa waxaan ku jirnaa sidii dhalinyaradeenna youth-ka ay u sameeysan lahaayeen madax eldarigeena ay iskugu toosi lahaayeen halkan intaas kaliya maahana diinta ayaa lagu bartaa kitaabo ayaa ka socda waxaa kaloo jira barnaamij haweenku ay leeyihiin oo mararka qaar ay fitness ku qabsadaan oo halkan ay ku qoobka ciyaaraan intaas oo dhan waxaa fuliya community-gan Horn Africa marka wax badan ma aynaan jirin 14 sano inteena badanna waxaanu ku shaqeynaa volunteer waxaanu sugnaa oo la gaadnaa youth-ka summer jobka oo aan ka helno xoogaa fiican dabadeedna community-ga ayaan ku kala dabirnaa dad badan ayaan shaqaalaysiinaa hadeertaan insha Allah sanadka soo socdana liberaalka waxaan rajaynaynaa inaan dad badan ka shaqaysayno dawladda iyo government-iga saddexda levelba inaan ka helno dhalinyaro aan shaqaalaysiino marka anagu kullayba anoon isfaaninaynin aniga waxaan ahay maamulaha organization-kan executive director raggeenan meesha ka shaqeeyana inta badan waxaan ku shaqeynaa volunteer iyo inaan maaragtay iska wax u qabso u shaqeyno hadda Soomaalida waxaan ugu yeeraynaa Soomaalidu inay wax qabsato waxa la soo gaaray waqtigii runta la gaari lahay dhalanteedka in laga baxo oo wixii dan oo noo ah inaan qabsano raadiyalka maxamed daahir oo ugu horeeyo oo Soomaalida isu keenana
in la tixgeliyo oo la ixtiraamo maaragta fanna loo sameeyo si aan isugu duubnaano warkeenu banaanka ugu baxo wax badan aan u qabsano anoo soo gaaminaya waxaan u mahad celinayaa dadkii badnaa oo halkan ka soo qayb galay iyo raadiyaalka kaleeto oo warkeena gudbinaya waxaan rajaynayaa Soomaaliya inay ku soo noqoto Soomaalinimadeedii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa tahay markana aan dib idinku celiyo saaxiibkay maxamed daahir maxamed واتها عاد بعد ما سنتهي رنتي برنامج هذا قروح بدن بوها وركاس شقوي بدن بو قبتي دد بدن ما كسو قيب قاتay shaad arkayseen waxa ka faa'iideystay ubad badan iyo dad badan oo community-ga Soomaalida waana ku maasan yihiin runtii shaqada fiican oo qabteen gaar ahaan maamulaha waxrisaal iyo gudoomiyaha ururka waa aadan cadow engineer aadan cadow cali waa tahay karag oo laba saar hadii aan u gudubno qayb kale magaalada Toronto iyo xaafadaha ku wareegsan waxa ka dhacay barnaamijyo aad u ballaaran misaagana waxa lagu soo gabagabeeyay barnaamij 3 cisho socday oo barnaamijka loo yaqaano Muslim Festival ama dadka muslimka ah oo festival iyagu qabsada barnaamij qurux badan buu dad badan ka soo qayb galay runtii 3 maalmood u socdeen waxaad arkaysay dhammaan ubadka dhalinyarada dadka waaweyn daayirta culimada u diinka dadka comedian-ka loo yaqaano dhammaan inay meeshaas joogeen dadka qayb qaatay halkaas waxa kamid ah Abdullah Al-Zubaydi oo wadanka Sacuudiga ka yimid iyo Maxamed Sami oo ka socday wadanka Cameroon waxay noo sheegeen inay runtii aad ugu farxeen qaabka muslimiinta ku nool wadanka Canada siba Toronto iyo agagaarkeedu ay uga qayb qaataan barnaamijyadan oo kale waxayna sheegeen in loo baahan yahay in hore loo socdo loo wado isla markaasna dadku ay noqdaan kuwa si weyn diinta Islaamka iyo wadanka Canada ay ku nool yihiinba uga faa'iideystaan